naagtan aniga in la soo furay bay ii sheegtay waan guursaday wiilka anaa dhalay wiilkaygii baan doonayaa gartaa la taraafsii waxaa la yidhi waa laba meherey warninowna caynowna waxaad leedahay naagta wiilkana dee axmed garaad baa iskale waa in axmed garaad arrintii waxaa la yidhi wiilku gabadhii kama maarmo hooyadii marka uu nin weyn noqdo u soo noqo axmed garaad oo iska tag waayahay garaad cabdalle imise nin buu dhalay mase la hayaa nimankaas iga u dhalay sidii lagu kala xulay maadaama ay adeerkoodna uu ku simay abahoodna uu daraya arrintaa taariikh dheer bay leedahay ilmo garaad cabdalle 4 bay ahaayeen axmed iyo guuleed iyo maxamed iyo cali lababa isku bah yay ahayd maxamed iyo axmed iyo maxamed isku bah bay ahaayeen guuleed iyo calina isku bah bay ahaayeen waxaa ilmo garaad cabdalle u weynaa axmed garaad baa u weynaa dhaqankeenna iyo garaatooyada garaadka haddii lagu caana shubo maalintii wiilka u weyn uu qaangaaro ama masuulka uu qaadi karo lama yidhaahdo u banneen meesha mar haddii lagu caana shubo garaadka garaatooyadu u dhammaystaa garaad yaasiin ilaa iyo intuu ka dhimanayay isagaa garaad ahaa ilaahay hadduu kuu roon yahay ilmo garaad cabdalle iyagoo waaweyn oo axmed garaad uu caligari nool yahay yuu garaad yaasiin garaad ahaa marka waxaa dhacday axmed garaad waa la dilay axmed garaad gabadh nin waxaa la yidhaahdaa lagu sheegaa wuxuu ahaa qalqaaliya oo aan rag waxba isaga tirin oo ilaahay hadduu dee ina garaadna ah markaa una weyn ilmo garaad dad iyo dunyaba markaa dee waxaa jira axmed iyo cali iyo warfaayo waa jiraanoo nin aan dee tulkiina isku hallaynka qabaa nina isaga waxaynayn nin waxaa la yidhi gabadh la yidhaahdo mareexaana oo la yidhaahdo faadumo gaarshireed oo intay qoladan markaa dadku xitaa qabiilooyinku sidan habar gidir intay u caruuro dhashay mid ya laba soo dhashay oo carmalisay oo aad u qurux badan oo reerahooda ku soo noqotay iyo xodxoti carmal baan ahay waa la soo furay wakaa adigu gabadhii buu xaraystay gabadhii caruur baa ka maqnayd midhaa markii cabaar la wada joogay bay habeen iska dustay reerkoodii isna wuxuu ku tuhmayey in ilmo uurka uu galay cabaar warwaraysay oo muddo oo gabadhii horta waa noqotay oo waa la arkay in ay zaa'id uu ku jiro ninkii qabay wuu sheegay marka waa la sugay intay ka dhalaysay dadku markaa dhiigga waa ka baqi jiray wiil bay dhashay wiilkii ay dhashay waxaa la yidhi xoolaha geela ha la hor dhigo ilagu gacanteena yuusan ku bixinay waa la hor dhigayo awrkii baarqab yaa mar walboo la hor dhigo ilaa 3 jeer 4 jeeni ka kala fida waxaa la yidhi kani waa ayaanle yaynaan iska dilin waa qabiilkan ballaaran ee haddeer ayaanle la yidhaahdo degan dhuusa mareeb waa qabiilkaa iyana waa is yaqaanaan waa la jeclaaday wiilkiiyo waa la haystay axmed garaad oo geenyadiisii iska wata yaa galabtii dambe soo dhacay naagtan aniga in la soo furay bay ii sheegatay waan guursaday wiilka anaa dhalay wiilkaygii baan doonayaa gartaa la taraafsii waxaa la yidhi waa laba meherey warninowna caynowna waxaad leedahay naagta wiilkana dee axmed garaad baa iskale waa in axmed garaad arrintii waxaa la yidhi wiilku gabadhii kama maarmo hooyadii marka uu nin weyn noqdo u soo noqo axmed garaad oo iska tag axmed garaad waa soo noqday dhex markuu marayay buu meel geed hoostii iska seexday nimankii midhaa kamaba ay xarin way yidhahdeen ninkani warkaa yuusan geynin tolkii waa la usxabaalay raacdadii baa dishay isagoo hurdaa madaxa lagaga dhuftay wax waa la aasay waa la qariyey haddaad maqashaan caligeri baa wax doonay caligeri cidduu doonayaa waa aabbihii wuxuu ku doonayaana waa genyadii u watay genyadii u watay buu ku raadinayaa weliba dadka qaarkii taarikhyahanadu waxay yidhaahdaan geri baa la oran jiray cali markaasuu la baxay oo uu raadinayo aabbihii meeshuu ku dambeeyey magacuu ku raadgadanaya magacuu ku raadganaday
markii dambe ee laysu tegay lays arkay qoladaasina tiri waa cali inaguna aynu gari u naqaan kadibna waa cali laakiin yaani sheekada waxaynina cali gari waa uu tegay nacas buu iska dhigay dhulkuu dhex maray wuxuu raadinayaa waa geeyadii gurigay joogto geeyadii aabihii watay gurigay joogto dudub lagu galay oo de 40 habar gidir iyo adeerkoodu way waa tan inana halkaa aynu iska sheegano oo gabar buu xodxotay oo xogtoo dhan u sheegtay oo isna uu wiil kaga yimid celi ninka la yiraahdo ee duduble yuu kaga yimid warkii buu soo qaadayo in Axmed ay qoladaasi dishay geeyadiina uu wadaayo makhraatiya markaas al lagu saaray hayna waxaa ka mid ah heesahan aynu geel ugu qaadnay la yiraahdo adoo gaabtaa gaas la wacayo gorsay habar gidir gaalada hawiye laga soo guray waa la galay ilaa ay markii dambe garaad yaasiin erga u soo dirsadeen oo yiraahdeen colka hana laga daay waa bixinaynaa wixina lagu xukumaba garaad yaasiin colkii waa ka daba tagay colkii waa soo ceshay isagoo colkii gelin soor meesha la yiraahdo ciidankii dhulbahante iyo wafdigii dhulbahanta lagu soorayay oo waa gelin dhanba ciidanka la soorayay tareentu ka qabo garaad yaasiin halkaas ku dhintay isagoo nabadii xiray oo arintii dhameeyay oo nimankii wixii xukun ahaana laga qaaday halkaas garaad yaasiin ku dhintay ilaa iyo hadda way siyaartaan waxay yiraahdaan waa awoogayo gelin soortan inoo dhow ayaan la iyo habar gidirba waa siyaartaan marka waxaa dhacday يا أحمد قرادو عرضكي وادنت waxaa soo haray saddexdii kale guuleed waa ka wan yahay maxamedna wuxuu leeyahay bahdayada lahaydoo bahal ma dhaxasho isqabadku halkaas ka yimid guuleed iyo maxamed labadii nin ee walaalaha ahaa isqabadkoodu wuxuu ka yimid warwaan ka weynahay iyo may bahdayada yaa garaatooyada lahayd midadadkuna waa kala jeclaystay de walaalkii cali baaba qabanaya walaalkii cali oo isku bahaayeen de wuxuu dhawaa walaale ay guuleed isku bahaayeen baaba garbadu buu qabanaya marka dambe oo le war khaldan tahay joog sidaas isqabadkuna halkaas uu ka yimid sababta isqabadku yimidna ninkii weynaa yaa iyadoo wali garaadkii nool yahay dhintay dabcan marka caruurtu ay wada koraan inta garaadku nool yahay caruurta kale lama kala eego oo de ninkiiba laakiinse marka caruurta garaadku intuu dhinto ku siisima uu joogo caruurta waa la eega wartolo yaa idin bedeli doona ninkan marka halkaana kullayba midha waa la kala jeclaystay oo sida marka waxay u badan tahay inay ku raacday bahdan waa bahday ku raacday xabadina bahdan way garaad shirshoore ilaa garaad faarax ama aynu ilaahay ilaa garaad cabdalle wax dhacdooyin taariikheed laga hayaa ma jira intaas hadeer aan tirinay wax ka badan ma jira waayahay garaad weydiinta u dambeysay barnaamijkeena galabta qaybta koowaad waraysiga ama warbixinta aanu ka qaadanayno garaatooyada dhulbahanta waxay noqonaysaa taliska dhaqanaya daarood keeba ugu facdheer xagga abtirsiimaha marka laga hadlay boqortooyada yaase ku xig ama yaase kaalinta saddexaad arinta sidaan horena u sheegay xaafraac male macna dhigaal sooyaal taariikheed oo sugan oo meel ku qoranayno hayno waan abtirsiyada ahayd ma jiro marka abtirsiyada markaynu eegno de shirshoore wuxuu ka tirsanayay 7 daarood 7 wuxuu ka tirsanayay ta ugu soo xigta waxay sida aan anigu markaan baaray odayaashii taariikhyaankana ay wariyeen garaad shirshoore u horeeyay garaad daarood oo lagu caana shubo garaad shirshoore yaa ugu horeeyay muddo markay jirtay dadku tarmay la batay qarniyo ka dambeeyeen yaa absame yiri garaad baan samaysanayna absame oo harti uu yiri waa ka go'ayna waa la isdilay arinta berigaad sidan garaad baan samaysanayaa iyo waa iska tagayaa iyo geed halkan aan ku caana shubanayaa ma ahayn jirin de talis bay ahayd meeshan aad maqashaan aynaba dusheeda kabar ogaadeen la yiraahdo halkaas dagaalka ugu daraa uu ka dhacay absamo waaqax galbeed buu qabtay wixii hargeysa iyo ka soo rogan dhulka buuraha goolis dhabarku ka maray
niman jid waaqo fara badan oo inugu hadhay dalka degenaan jiray dhawaan guuri waa jireen harti laftigiisa yaa muddo dambe kala jabay habar ma jeerteen baa tiri garaad baanu samaysanaynaa habar ma jeerteen yaa tiri garaad baanu samaysanaynaa warsan geli garaad cabdalle qoladan reerkan garaad cabdalle la yiraahday ballaaran awowgii yay ka soo bilaabantay waa garaad cabdalle garaad maxamuud garaad yuusuf cumar garaad ma ahayn dubays ina garaad ma ahayn dee dhowr iyo toban baa warsan geli halkaa u dhaxeeya laftigeeda ee garaad baanu samaysanaynaa iyo waa yahay ma dhicine waa la istiri talada la isku talaad ma waxa weeye de ma samaysanaysaa taladii waa ballaaran iyo si u ballaaran talada waanu idinka go'aynayo garaad baanu samaysanaynaa iyo waa yahay iskama dhici jirin markii hore waa la jabiyay buuraha laga saaray ninka garaad cali dable la yiraahdo yaa 1500 meelaha aaday carab u baxay waxay u badan tahay turkiga inuu aaday waa markii qorigu soo baxay dhulbahantana qoriba ma aqoon ninkaasaa hub soo qaatay markii la yidhi waa soo noqdeen nimankii iyo dhulkii bay u soo baxeen oo ciidan bay urursadeen yaa lagu duulay qorigana markaa dhulbahantii duulayay ma ogeynba dhulbahantii waa lagu soo jibiyey waxaa la yidhaahdaa haddeer dhirin yaxya u badnaa wixii ku dhintay meesha dhirin yaxya maalintaasay bannaysteen maalintaas yay bannaysteen oo ay bannaanka la mareen iyagana horaantii 1700 baa waxaa ka go'ay ma jeerteen oo Ismaan Maxamuud